muddo sanada bulshada Soomaaliyeed waxay wajahaysay caqabadaha caafimaad oo adag adeegyo kooban qalab xadidan iyo kalsooni yari baahidaas jirta iyo xanuunka ay keentay ayaa horseeday asaaska Kalkaal Hospitals oo ah isbitaal ujeedadiisu tahay inuu noqdo bedel dhaba oo lagu kalsoonaan karo kana yareeya bukaanada safarada caafimaad ee dibadda. Kalkaal Hospitals waxaa la furay 2015 waxaana laga furay branchgiisii koowaad Banaadir area. Isbitaalkan Kalkaal ee Muqdisho oo adeegyo caafimaad oo dalka dibaddiisa u aadi jireen hadda dalka ugu haya dadka Soomaaliyeed isla markaana bulshadu ay soo dhaweysay. Kalkaal waxaa alxamdulillah inuu ku soo beegmay xilli baahi badan loo qabay caafimaadka wadanka wuxuuna ku soo beegmay xilli fiican oo la dhihi karo baahidaas inuu daboolo ayuu qayb weyn ka qaatay. Kalkaal waxyaalaha uu kaga duwanaa oo uu wadanka ku soo kordhiyay waxaa ka mid ah wuxuu ahaa waxyaalihii wadanka dibadda looga aadi jiray inuu ka fargareeyo. waxaa iska garan kartaa basic wadanku mar walba waa iska haystay laakiin wuxuu ka maqnaa waxay ahayd waxyaalaha basic aan ahayn oo Kalkaal alxamdulillah wuxuu soo kordhiyay immediately inuu ka qayb qaato oo ka qaato qayb weyn sidii uu dadka dibadda aadaya oo Indiya iyo meelahaas aadaya baahida ay u qabaan inuu ka fargareeyo. qalliimadii ugu horeeyay ee laga sameeyo fertility lagu sameeyo ama rag ama dumar waxaa sameeyay Kalkaal. muddo 4 sano reer lahay wax u badan Ilaahay ma siinin kadib waxaan soo booqday isbitaalka Kalkaal arin caafimaadaan u soo doontay dhaqaatiirta Kalkaal baaritaana ayaa la ii sameeyay waxaa la ii sheegay inay maartay sheegay mina xagga dhalmada oo shahwada aad u hooseyso kadib baaritaanadii kadib in xal loo heli karo oo daaweyn loo heli karo waxaa la ii sheegay qalliimo oo la ii sameyn karo marka alxamdulillah qalliimada Ilaahay ku guuleysiyay muddo 4 sano maartay wixii aan raadinayay oo waayay Ilaahay ka sokow horta waa caafimaad qalliimada Ilaahay iga guuleysiyay hadda maartay cubadaan helay waxaan hambaliyay guud meeshaan wadarayaa 10 guuradii ka soo wareegtay aas-aaskii Kalkaal Hospital adaadtaan wuxuu ahaa dream laakiin maanta wuxuu isku bedelay inaan 10 sano u dabaaldegno marka waxaan hambaliyay guud u darayaa dhammaan asxaabtii iyo Kalkaal family hadday noqon lahayd dhaqaatiirta hadday noqon lahayd patientska iyo hadday noqon lahayd friendshipka iyo local iyo international inta qayb ka qaatay waxaan hambaliyo Kalkaal Hospital in la sameeyo waxaan u dhaliyay markaan aragnay baahida jirta iyo duruufta caafimaad oo wadanku uu jiray markaan aragnay bukaanno u baxayo wax aad u yar in dibadda loo aado xogaa waxay noo noqotay inaan u baahno in meesha Soomaaliya inaan ku soo laabano aqoonta aan leenahay oo dibadda markaan joognana aan ummadan ugu qabano taas waxay nagu dharisay inaan isbitaal Kalkaal asaasno sababta oo asaasna isbitaal Kalkaal wuxuu ahaa community-ga inaan wax badan ku soo kordhino ummadan loo adeego 10 sano ee la soo dhaafay Kalkaal Hospitals wuxuu sameeyay horumar la taaban karo adeegyada caafimaad waa la balaariyay qalab casri ah waa la hirgeliyay tayada daryeelkana si joogto ah ayaa loo xoojiyay isbitaalku waxa uu noqday meel rajo u ah kumanaan bukaan oo kala duwan qaybaha kala duwan ee bukaan socodka waxaa ka shaqeeya dhaqaatiir takhasus sare leh Kalkaal Hospital waxa uu leeyahay qaybaha gurmadka degdega emergency oo shaqeeya 24 saac toddobaadka oo dhan waxaa sidoo kale jira qaybta hooyada iyo dhallaanka oo iyaduna shaqeysa 24 saac 7 maalmood ee usbuuca oo dhan habeen iyo maalin lagana heli karo dhaqaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad oo mar walba heegana Kalkaal Hospital waxa uu leeyahay qaybta NICU daryeelka gaarka ah carruurta oo la heli karo 24 saac toddobaadka oo dhan si loo bixiyo daryeel heer sare oo loogu talagalay dhallaanka nugul. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده خيارة شرفت له مدن يمروين دمان كسو قيب كلياشا دمان بكاندا كالكال ميلو البيتشوغانبا iyo qoysaskooda iyo marti sharafka
kasoo qayb gashay oo leh qaybo kala duwan qof kastaahu maqaamka iyo mansibka uu ku fadhiyo ayaan ku salaamay. farxad weyn ayay noo tahay maantay bahda kalkaal inaan idinku soo dhaweyno sanad guuradii tobnaad, taasoo aan bahda kalkaal hospital ay dib ugu jaleecee maalmihiisii uu soo maray isbitaalku. waxaan rabaa dhammaan bahweynta isbitaal kalkaal inaan la wadaago hambaliyada 10 guurada kasoo wareegtay aasaaska isbitaal kalkaal. adeegyada isbitaal kalkaal bulshada Soomaaliyeed ugu hayo ugu baxsho waxaa kamid ah dhammaan bukaan socodka oo takhasusaadka kala duwan ay ku dhameystiran yihiin, qofkana uu heli karo optiono kala duwan oo dhaqaatiira. adeegaas oo isugu jira haweenka iyo caruurta, bukaan socodka qaybaha qaliimada kala duwan oo dhan oo dhameystiran, adeegyada wax lagu ogaado diagnostic la dhaho oo baaritaanada ah. isbitaalka wuxuu kaloo leeyahay qayb emergency department ah oo madax bannaan oo 24 saac uu ka shaqeynayo dad takhasus gaar ah u leh cilmigaas ay barteen. sidaas la midana qayb intensive care unit oo 24 saac daryeel bixinaysa iyo bukaan jiifyada. adeegyadaas marka laga soo tago qofku wuxuu ka faa'iidi karaa habeenkii oo kale inuu leeyahay bukaan socod gaar ah qaybaha u badan ee bulshada u baahan yihiin, kaasoo dhammaystiri kara dadka aysan suurtagal ahayn inay isbitaallada iyo adeega caafimaad ka faa'iidaystaan xilliyada maalintii ah oo shaqooyin kala duwan lahaan kara. isbitaalka adeegyada uu baxsho waxaa kaloo uga faa'iideynaa bulshada Soomaaliyeed ayagoo ay suurtagal tahay dad badan oo aan soo gaari karin isbitaalka xarumihiisa in loo sameeyo regional campaigns oo dhaqaatiirteena takhasuska ah hadba ay ku tagaan gobolada kala duwan ee waddanka. adeegyada isbitaalka oo bixiyo runtii waxyaabaha keenay in horumar baaxad leh laga sameeyo waxaa ka mid ahayd tayeynta isbitaalka, haddii ahaan lahayd qalabkiisa, haddii ahaan lahayd daawadiisa, haddii ahaan lahayd shaqaalihiisa, ayadoo muxuu ahaa loo marayay halbeegyada caalamiga ah iyo qaadashada ISO certification. hadda waxaa meel fiican noo marayso shahaadooyin kale oo caalami ah. intii isbitaalka uu jiray runtii wuxuu daaweeyay kumanaan bukaano Soomaaliyeed, kuwaasoo iskugu jira kuwa awoodi kara iyo kuwa aanan awoodi karin. sidoo kale isbitaalka waxyaabaha oo ku caan baxay waxaa ka mid ahayd inuu ku guuleystay in dhibaatooyinkii iyo musiibooyinkii iyo qaraxyadii waddanka ka dhacay in si bilaash ah oo bukaano Soomaaliyeed oo ku daaweeyay, taasoo dhaxal siisay in bulshadu ay noqoto xarumaha ugu horeeya ay ku diirsadeen. kalkaal hospitals uu soo kordhiyay waxaa ka mid ah baranjigii labaad waxaan ka furnay waqooyiga magaalada Muqdisho, 4 jirdiin aan ka furnay. wax badan baahi xagga dhinacaas ka jirtay ayuu ka fargareeyay. waxaan ugu hambaleynayaa bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bahda kalkaal sanad guuradii 10aad ee ka soo wareegtay waqtigii la aasaasay isbitaalada kalkaal. sida wada ognahay isbitaalada kalkaal faraca koowaad ee Banaadir waxaa la aasaasay sanadii 2015. si la mid ah xarunta labaad ee kalkaal 4 darjiino waxaa la furay 2022 bishii December. xaqiiqatan taas oo nagu dhiirigelisay baranjiga labaad inaan ka furno 4 darjiino ayaa waxaa sababay baahiyo jira awgeed. sida wada ognahay baahiyo badan ayaa ka jiray deegaanka, kuwaasoo tusaale ahaan yani waxaa ka mid ah yani in aysan lahaynin isbitaalada ku yaalay waqooyiga Muqdisho incubatorska amba NICU sida loo yaqaano xanaanada caruurta. tusaale ahaan hooyada markii ay ku dhasho isbitaalada kaasoo loo ordi jiray meelo gaar ah maadaama magaaladii inta badan aysan wada oolin dhalooyinka. yani waxaan arki jirnay dhowr maamo ilmaha in lagu qalo intii la sii waday ee ku dhimanayaan jidka. sidaa daraadeed markii aan aragnay baahiyo jira awgeed
ayaan waxaan ka furnay xaruntii labaad ee isbitaalka. kalkaal waagii aan bilaabaynay waxaan xasuusanaa dhakhtar anesthesia ah oo Dr. Anil Kumar la yiraahdo Hindi ah ayaan keenay kalkaal June 2015 kadibna lacag waxaan ku bixinay $5,000 si dhakhtarkaas u suuxiyo bukaanka Soomaaliga markaasna annagu u talagelayno quality and safety and standardization institutionka in laga bilaabo aasaaskiisii koowaad bistaan then waxaa noo suurto galay aasaaska bacdi isbitaalka kalkaal inuu soo saaro dhakhtarkii 5,000 aan ku bixin jirnay inaan local capacity u samayno waana midda keentay waxyaalaha la yiraahdo skill transformation in isbitaalku la dhiso dad local Soomaali ah skill transformation loo gudbiyo kadibna capacity la sameeyna staffkii localka ahaa oo Soomaalidana inay aan over ku sameeyaan transformation skill ay sameeyaan kadibna community u adeegeen kadibna markii loo adeegay waa department anesthesia kaliya in ummadda Soomaaliya ilaa istaraadka regionalka iyo localkana ay gaarto aqoontii standardka ay gaarto waxaa noo qabsoomay isbitaalka kalkaal 10 sano ka bacdi waxaa kamid ah in isbitaalku uu sameeyay professional skills badan inuu dalku soo kordhiyo oo Soomaali ay noqon lahayd in external professionals waddanka duu keenay skill transformation ka qaaday kadibna apply gareeyay kadibna maanta community-ga wax badan u qabtay sanadihii la soo dhaafay kalkaal hospitaalis wuxuu si joogta u bixiyay tababaro caafimaad wax ku hola arday ka kala yimid jaamacadaha dalka ayaa ka faa'iideystay tababaro isugu jira aqoon iyo khibrad shaqo taasoo ka qayb qaadatay dhisidda awoodda mustaqbalka ee shaqaalaha caafimaadka maantay kalkaal hospital waa referral hospital in Soomaaliya hadday noqon lahayd gobolada Soomaaliya iyo hadday noqon lahayd caasimadda Soomaaliya kalkaal hospitalis waa referral hospital in Soomaaliya kalkaal muxuu soo buuxiyay marka kalkaal wuxuu soo buuxiyay national level ayuu wuxuu kor ugu qaaday sumcadda standardka iyo quality-ga caafimaadka health sector waxaa maanta gaarnay regionalka inaan qayb ka noqono standardka iyo quality-ga kalkaal hospitalis wuxuu sidoo kale fuliyay ololayaal caafimaad oo gobolada kala duwan ee dalka isagoo adeegyo bilaash u fidiyay bulshooyin u baahan kana qayb qaatay gaarsiinta daryeel caafimaad meelo aad u fogfog isbitaalka kalkaal wuxuu qayb lixaad leh ka qaatay adeegida dadka tabaaleysan ee Soomaaliyeed hadday noqon lahayd ilmaha agoonta iyo dadka aan awoodin qalimada inay iska bixiyaan isbitaalku wuxuu dib ugu soo celiyay social responsibility-ga inuu dadkaas masaakiinta u adeego in ka badan 10,000 oo Soomaaliyeed iyo 10,000 oo aan dhihi karno oo isbitaalku caawiyay si dadban iyo si toosaba isbitaalku caawiyay partnership-ka oo ay ka wada shaqeynayeen hay'adaha international charity-ga oo ay kamid tahay Smart Training iyo hay'adda International Crystal Foundation dad badan oo stigma ku jirana isbitaalka dib ayay u heleen caafimaadkoodii isbitaalku wuxuu kaloo qayb ka noqday markii la soo kordhiyay adeegyadan advanced surgery-ga sida cardiac open surgery-ga in loo adeego caruur ka badan 50 qofood oo caruur ah qaarkood oo isbitaalku wuxuu sponsor ka noqday 10 qofood ka badan oo free lagu sameeyay oo aad dareemaysaa cunugiiba inay ku bixayso lacag ugu yar minimum $10,000 isbitaalku wuxuu dib ugu soo celiyay bulshadii dad badan oo rafaadsan oo aan awoodi karin qalimadan complex surgery-ga isbitaal qayb ka noqday isbitaalku waxa uu leeyahay rug samafal oo diiradda saarta daryeelka dadka nugul waxaa si gaar loo caawiyay haweenka qaba xanuunka fistulada ama isku furanka iyadoo la siiyay daaweyn qalliin iyo daryeel bini'aadanimo oo dhammaystiran foundationka isbitaalka waxaa la aasaasay 10 sano ka hor waxaana loo aasaasay isbitaalka inuu bulshada dib ugu celiyo social responsibility-ga saaran uusan noqonin isbitaal kaliya adeeg caafimaad oo lacag ah bixiyo sidoo kale waxaan ku fikirnay in uu bixiyo mas'uuliyad ah in adeeg lacag la'aan oo bulshada siin karo foundationka isbitaalka intii uu jiray 10 sano wuxuu qabtay shaqooyin waaweyn waxaa ka mid ah in 3,500 oo qof oo Soomaaliyeed aan u sameynay qaliimada dhamxanaga iyo faruuranka annagoo kaashanayna hay'adda caalamiga ah Smile Train waxay ilaahay fadligiisa 3,500 oo qofood inay bulshada dib ugu noqdeen
oo maanta ay dhoola caddeyn karaan faruurankii iyo dhamxanagii ay qabeen ay ka reysteen. waxaan sidoo kale bixinaa adeeg la xiriiro qaliimada isku furanka haweenka annagoo kaashanayna hay-adda caalamiga ah ee Fistula Foundation. waxaan ilaa hadda 150 hooyo oo Soomaaliyeed u sameynay xanuunada isku furanka haweenka inaan ka daaweyno oo kaga imaada xilliga dhalmada. runtii waa xanuun dhibaato weyn ku haya bulsho badan oo Soomaaliyeed lana ildaran yihiin. qaliimadaas hadda faruuranka iyo isku furanka haweenka waa qaliimo si joogto ah looga sameeyo labada isbitaal ee Kalkaal Hospitals. taas ayaa fududeysay in si joogto ah adeegaasi lacag la'aan ay ku heli karaan bulsho badan oo Soomaaliyeed. intii uu foundationka jiray waxaan sidoo kale adeeg u fidinay caruur badan oo Soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin caruurta agoonta ah ee jooga iskuulada lagu xanaaneeyo caruurta agoonta ah iyo sidoo kale caruurta agoonta booliska ah. waxaan siinay adeeg caafimaad oo lacag la'aan ah iyo tallaalada cudurrada faafa sida cudurka cagaarshowga oo aan ka tallaalnay caruurtaas. waxaan ku tala jirnaa inaan adeegaas sii laba jibaarno soo kordhino adeegyo kale oo bulshada waxtar u leh uguna adeegno qaab ay uga faa'iideysan karaan uguna aayi karaan. isbitaalka Kalkaal waxaa ka go'an sii wadidda daboolidda baahida mujtamaca Soomaaliyeed isagoo aaminsan qof caafimaad qaba ayaa horumar abuuri kara. caafimaadku inuu ka mid yahay amniga loo baahan yahay qofku inuu helo si horumar ummadaas u gaarto. anoo ka amba qaadayna Kalkaal bahda Kalkaal ayuu ka amba qaadaya baahida caafimaad inay muhiim u tahay ummad kasta si horumar u gaarto ayaan go'aan naga tahay inaan sii wadno dadaalkii horumarinta adeegyadii nala kaga bartay bulshadu iyadoo intii kasii horumarsan. aadna waxaan ugu faraxsanahay inay dadkii hadda qurbaha xataa jooga ay fahmayaan in wadanka aan wax badan ku soo kordhinay. waxyaalaha aan wadanka ku soo kordhinay waxaa ka mid ah inaan open cardiac surgery wadanka aan weligeed lagu samayn inaan bilownay oo dibadda un loo aadi jiray, laakiin Kalkaal ay ku guuleystay inay maaragtay open cardiac surgery wadnaha in qaliin furan lagu sameeyo. waxaa farxad ii ah inaan ku hadlo anoo ku hadlayo qaybta qaliinka wadnaha xididada iyo feeraha Kalkaal Hospital inaan qayb ka noqono 10 sano guurada ee Kalkaal Hospital. 10 sano oo adeeg caafimaad ah waxay astaan u tahay dhabar adeega adkaysiga iyo sida ay uga go'an tahay Kalkaal Hospitals horumarinta adeega caafimaadka wadankeena. 10kii sano ee la soo dhaafay Kalkaal waxay ku shaqeynaysay fikirka ah in mar walba heerka uu taagan yahay caafimaadka wadanka kor loo qaado lana yareeyo dadka maaragtay u baxa safarada dibadda ah xaalada la xiriira caafimaadka. sidaas darteed ayadoo fikirkaas laga amba qaadayo ayaa waxaa lagu aasaasay qaybta qaliinka wadnaha iyo xididada iyo feeraha Kalkaal Hospital. qaybtan waxay qabataa adeeg caafimaad oo aad u horumarsan kuwaasoo dadkeena in badan oo kamid ah ay u aadi jireen dibadda. adeegyada ay qabato waxaa ka mid ah adeegyada qaliinka furan ee wadnaha, adeegyada qaliimada xididada oo dhammaystiran iyo adeegyada qaliinka feeraha. qaliinka feeraha markii aan ka hadlayno dhammaan qaliimada feeraha oo dhammaystiran sida kansarka ku dhaca feeraha iyo sidoo kale hunguriga kansarada ku dhaca. xaruntan furideeda kadib waxay sabab u noqotay in bukaano badan oo aan aadi karin dibadda qarash badanna ay ku bixi jireen si ay u aadaan dibadda inay kaga maarmaan oo wadankooda adeegii caafimaad ay ka helaan. inta xarunta ay shaqeynaysay waxaa loogu adeegay bukaano badan oo cadadooda ay ka badan tahay 100 bukaan iskugu jira maaragtay bukaano badan oo loo sameeyay qaliimada furan ee wadnaha, dadka waaweyn iyo caruurta intaba, iyo bukaano laga qalay kansarada feeraha ah iyo sidoo kale 100 bukaan oo laga qalay xanuunada la xiriira xididada. mar kale waxaa farxad inoo ah inaan qayb ka noqono 10 sano guurada Kalkaal Hospital. waxaan leeyahay horumar wacan. assalaamu calaykum. isbitaalka asagoo kor u qaadaya kordhinaya adeega caafimaad waxaa tababaro joogto ah loo diraa shaqaalaha caafimaadka oo hadba u dirno isbitaalada aan saaxiibka la nahay ee ku yaala regionalka iyo international partners. taasna waxay fududeysaa in dhakhtarka iyo shaqaalaha caafimaadka
ay la jaan qaadaan qaababka cusub kana qayb galaan shirarka caalamiga ah looga hadlayo adeeg bixinta caafimaadka. magacayga waa Zikri Cabdiraxmaan Daahir, waxaan ahay madaxa xiriirka warbaahinta ee shirkadda Hormuud Telecom. waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynaa sanad guuridii 10aad ee kasoo wareegatay markii la aasaasay isbitaalka Kalkaal, taasoo ku suntan 10 sano oo adeeg dadweynaha ay u hayeen shacabka Soomaaliyeed, kuwaasoo sidoo kale ka helay adeeg aad u qurux badan muddadii ay ku xirnaayeen isbitaalka. waxaan aad iyo aad sidoo kale ugu faraxsanahay in Kalkaal ay ka mid yihiin isbitaalada sida wanaagsan xiriirka oo naga lexeeyo, taasoo ka dhigan in Hormuud Telecom markasta ay tahay business enabler-ka Soomaaliya. waxaana sidoo kale sharaf inoo ah inay isticmaalaan adeegyadeena shirkadda Hormuud Telecom ay bixiso. isbitaalka iyo dhammaan maamulkiisa iyo howlwadeennadiisa waxaan ugu hambalyeynaa sanad guuridii 10aad kasoo wareegatay. waxaan u rajeynaa sidoo kaleeto 10 sano iyo muddooyin fara badan oo intaas ka qurux badan inaan wada joogi doono, sidoo kale u soo adeegi doonaan shacabka Soomaaliyeed. isbitaalka waxyaalaha uu soo kordhiyey oo hadda dhowaan aan furi doono hadduu ilaahay idmo, qayb cusub, building cusub oo ka kooban 500 oo sariir. capacity-ga intaa la eg waxaan ugu talagalnay in dadka baahida hadda ka jirta ay kaga yaraato oo maaragtay looga maarmo dibadda la aadayo. isbitaalku sanadkani wuxuu helay shahaadada jaamacad caafimaad oo awood u leh inay bixiso takhasusaad daraasaad sare si loo soo saaro kaadiriin iyo xirfadlayaal caafimaad ee Soomaaliyeed. Kalkaal Hospitals mar walba wuxuu garab taagnaa bulshada Soomaaliyeed xilliyada adag, wuxuuna si bilaash u daweeyay dhaawacyadii ka dhashay qaraxyada. wuxuu ka qayb qaatay gurmadka fatahaadaha, isagoo adeeg caafimaad gaarsiiyay dadka ay saameeyeen musiibooyinka dabiiciga iyo kuwa bini'aadam sameeyo. yaradii wax ku noqotay iyo dadkii kastoo wax ku noqda ahalka naga ahaa. dabcan markiiba heegan ayaan galnay, aan maqalnay. markaas kadibna waxaa noo yimid adiga dad kale isla markiina waxaan iclaaminay dabcan inuu isbitaalku free u yahay. soo faarna labada isbitaalba waa free ilaa hadda meesha waa ku qoran yihiin labadaba, iyadoo chairka isbitaalku uu amray free inay noqoto oo weliba hore loo geliyo shacabka loo soo inaan free kaliya laga dhigin in loo iclaamiyo inay free tahay. guusha Kalkaal Hospitals waxaa saldhig u ah shaqaale xirfad leh, daacada, kuna shaqeeya naxariis iyo mas'uuliyad. dhakhaatiir, kalkaaliyaal iyo shaqaale kale oo kala duwan ayaa si wada jira u xaqiijiyay in bukaanku helo daryeel ku salaysan faham iyo kalsooni. isbitaalka Kalkaal markii la aasaasay waxaa shaqaale ka ahaa 12 qofood oo iskugu jirta nursingka, security-ga, dhakhtarka iyo qaybaha kala duwan, shaybaaristayaasha. maantay oo 10 sano gudahood isbitaalka loo dabaaldegaana Kalkaal Hospital waxaa usoo shaqo tagta 700 qof in ka badan, iyo qofkiina waxaa la lamaanan waa dareemaysaa family Soomaali waxay ka kooban tahay 5 iyo wixii kasii badan ayaa inta saa usoo shaqo tagta. waxyaalaha uu kusoo kordhiyay ka mid tahay waxaa la yidhaahdo job opportunity waddanka. intaa kaliya maaha, familada Kalkaal Hospitals ku xiran iyo shaqaalaha iyo staffkana isbitaalku wuxuu siiyey insurance. guulaha aan gaarnay ma aanan gaari lahayn la'aantiin. dabcan mujtamaca ayaa saldhig u ah, iyo dadaalka ay sameynayeen shaqaalaha oo runtii dowr weyn muujiyey oo hufnaan ah, iyo in ay yihiin dad mujtamacooda u bisil inay daryeeshaan, iyo bahda kaloon dadka aan bahwadaagga nahay oo ayaguna runtii garabna siinaya. soo guulaha dhan kow waxaa ka ahaa mujtamacna community-ga inuu dowrna siiyey, shaqaalaha Kalkaal oo runtii dadaal muujinayay mar walbaba ay u qabaan xamaas inay dadkooda u adeegaan, iyo taageerada bahda caafimaadka. waxaan sii wadi doonaa dhammaan horumarinta caafimaadka qaybihiisa kala duwan, aqoontiisa, horumarinta qalabka, annagoo insha Allah rajaynayna inaan mujtamac annaga ugu adeegno si horumarsan, lan jaan qaadee standardka caalamka loogu adeego, iyo si ka fiican inuusan u baahan inuu bannaan u aado caafimaadkiisa, inay gacan aamina ku jirto ayaan insha Allah tusi doonaa haddaan nahay Kalkaal. ugu dambayntii waxaan u mahad celinayaa dhammaan community-ga na aaminay
oo kalkaal soo doortay meel kastay joogaanba howlwadeennada kalkaal iyo marti sharafta weyn ee na soo sharaftay ee maanta halkaan fadhida magac iyo maqaam kastay ku fadhiyaan iyo dhammaan bahwadaagta caafimaadka oo iyaguna si gooni ah nooga dhaxeeyo wada shaqayn iyo is-saboorgarayn annagoo hadafkanagu u wada yahay horumarinta caafimaadka Soomaaliya inaan gaarno heer qofkanagu oo ku kalsoon yahay caafimaadkiisa waana mahadsantihiin maanta kalkaal hospitaalis ma aha oo keliya isbitaal balse waa astaan rajo kalsooni iyo ballanqaad mustaqbal waa aragti muujinaysa in riyo si fiican loo qorsheeyey ay noqon karto xaqiiqo la taaban karo hoggaan aragti fog leh iyo qorshe cad ayaa suurageliyey kobaca kalkaal hospitaalis maamulka isbitaalku waxaa mudnaan siiya horumar joogta ah maalgashiga qalab casri ah iyo kor u qaadidda tayada adeegyada caafimaad ee isbitaalku u bixiyo waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo dhammaan shaqaalaha isbitaalka kalkaal waxaan rabaa inaan dhammaan u mahadceliyo dhakhaatiirta managementiga iyo dhammaan ciddii ku garab siisay in ay heerkan gaarto isbitaalka kalkaal oo ay ka mid yihiin bangiyada Soomaaliyeed oo investmentiga wax ka bixiyay ku taageeray in ay investment geliyaan sida Salaam Bank Amal Bank dhammaantood waxaan sidoo kale aad ugu mahadcelinayaa dhammaan macaamiisha customerka kalkaal oo runtii ku qancay sida aan ugu adeegayno iyo quality-geena aad iyo aad ugu qancay waan ku faraxsanahay in aan maanta ku compare garayn karno customerkeenu markay qaarkood dibadaha tagaan inay ku compare garayn karaan internationalka oo ay dhihi karaan maantay kalkaal uma baahno qofkii heli kara kalkaal helaya inuu dibad aado uma baahno waayo markii diagnoska aan gaarno ama aan baaritaanada ku samayno dhammaan customerkeena waxay noo sheegaan intii laga soo sheegay dibadda looga sheegay intaan ka sheegnay keliya inay tahay aysan waxba wax ziyaadaha oo kale laga soo sheegin marka taasna aadaan ugu faanayna oo ugu faraxsannahay waana ku mahadsan yihiin dhammaan customerkeena iyo macaamiisheena sida sharafta iyo qiimaha leh oo ay noogu xiran yihiin dhammaan waxaan rajaynaynaa ummadda Soomaaliyeed inaan u sii wadno shaqada aan u hayno inaan si fiican ugu sii wadno una dhammaystirno ayaguna ay ka faa'iidaystaan aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Assalaamu calaykum.